sheegtiyo isqoraansi baa yimi qaradaha adduunyada la isu qoonsay nabadi quwad la isu sheegtiyo isqoraansi baa yimi بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم هبين وناكسن دادك ندقيسانيو هالكان واراديا استار كنسو دوادا برامجك حكمال وهبين أحدا سنين إسوء قليسو ترسك تاريخ دا تضبي اللباتنك بيش سقالات سبتينبا سند اللبادا كون إيا اللباتنك وضبادا عاوه برامشكات كل جيسان دونتان وحاكم النقونية رئيس الوزراء عصوب صوماليا محمد حسين روبله أو ما أنت السر رسمي أولو وريقي حيلك يحفيزك حكومة صوماليا شيغينا ومحمد حسين روبله رئيس الوزراء عصوب حكومة الدلكة يا سحل كان كوريجيي ومهدي محمد قوليت قدر رئيس الوزراء كحجينكي هراء حكومة الصوماليا دينا عكله هالكي أيو كدن بيي باقي رئيس الوزراء هراء الصوماليا حسن علي خيره كوسون تناه إن حلك إساقا كوريجين أيو رئيس الوزراء عصوب كدب قرال وقدري مدحتو يدا فيلا صوماليا تا كو آدنيد إن سي شرعي وحلك كوريجيو وافقسنه دستور كالدالكا بالسه لدين عمري فلنقين أرنتان كسابسان أيانو برامجك إذي كوكسو قدبين دونا وحاسدو كلا ديجيستيال برامجك كو مغلي دونتان مدحوينها السومالي لان مصبح عبدي oo eedeymo kulul u jeediyay madaxweyne farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada dalka isagoo dhinaca kale sheegay in Somaliland ay hormuud u tahay midnimada shanta Soomaaliyeed hadalkan ayuu Musabix ka jeediyay munaasabad ka dhacday hool ku yaala Hargeysa ardayna ay ku qalin jabinayeen barnaamijka ayaanu idinku soo gudbin doonaa ayb waxa ka qodobada kale ee caawa barnaamijka ku jira waa xogayaha ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee SJS Cabdalla Muumin oo sheegay in madaxweyne farmaajo uu gaf weyn ka galay suxufiyiinta Soomaaliyeed kuna tilmaamay in ay yihiin waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dalka oo xalay madal su'aalo weydiin hadalkan ka sheegay barnaamijka ayaanu idinku soo gudbin doonaa waraysi dhinacyo badan taabanaya ayaanu idin soo baahin doonaa waxaa sidoo kale dhegeystayaal barnaamijka ku maqli doontaan Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee xukuumadda dalka oo khudbad ka jeediyay munaasabad uu xilka ku wareejinayay ayaa dardaaran adag siiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda Soomaaliya haddaba waa maxay dardaarankaasi barnaamijka ayaanu idinku soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale dhegeystayaal barnaamijka ku maqli doontaan taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed Generaal Xijaar oo maalmahanba ku sugan Baydhabo ayaa kormeer ku tagay qaar ka mid ah saldhigyada booliiska ee ku yaala deegaanada ee ku yaala magaalada Baydhabo muxuu ku soo arkay taliya Xijaar talisyadii uu booqday ee xarumahooda barnaamijka ayaanu idinku soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale dhegeystayaal barnaamijka qayb ka ah haddii Rabbi raali ka noqdo guddiga joogtada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ku shiray xarunta sida ku meel gaarka ay u degan yihiin golaha Villa Hargeysa waxaa kulankan shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal iyo ku-xigeenkiisa koobaad ee Cabdiwali Muudey
maxaa looga hadlay kulankan maxaase ka soo baxay barnaamijka ayaannu idinkugu soo gudbin doonnaa qodobadaasi wixii soo kordha ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan waa tabintii iyo soo saaristii cabduqaadir qoslaaye maxamed abuukar ayaa dhanka farsamada ka qaabeynaya gebagabada barnaamijkana waxaad ku dhegaysan doontaan sidaa ka dhidinawasira isticmaarkii ingiriisku wuxuu yidhi hagaag dhegaystayaal heestaas gebagabada barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waa mar kale iyo barnaamijka xogmaal waa tahay dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan isu soo noqod wanaagsan ayaannu hawada idinka leenahay goordhow ayaad maqli doontaan qaadaadhigidda qodobadii hordhaca barnaamijka aad ku dhegaysateen hase haatee kusoo dhowaada dhegaysiga wararka waaweyn gudaha dalka iyo dibadda saacadihii aynu ka soo gudubnay waxaa soo diyaariyey halkan ka soo jeedinaya waryaheena maxamed abuukar cabdi xasan oo dhanka farsamada ka qaabeynaya barnaamijka maxamed mahadsanid cabduqaadir qoslaaye dowladaha maraykanka iyo soomaaliya ayaa maanta kala saxiixday heshiiska dayncafinta dalka heshiiskaas oo ka dhacay safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble dowladda maraykanka ayaa soomaaliya ka cafisay qaybtii ugu soo aaday dayncafintii dalalka naadiga baris si hayaha xilka wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beelle ayaa sheegay in uu ku rajawan yihiin in deynta lagu leeyahay soomaaliya laga wada cafiyo dhankiisa ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo goobjoog ka ahaa heshiiskaasi ayaa dowladda maraykanka uga mahad celiyay deyn cafinta ay u samaysay soomaaliya waxa uuna sidoo kale ku bogaadiyey safaaradda maraykanka sida ay mar kasta u garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee gobollada bari sanaag karkaar gardafuu iyo haylan ayaa xukuno isugu jira dil iyo xabsi ku riday xubno lagu eedeeyey inay ka tirsanaayeen kooxaha al-shabaab iyo daacish raggaas oo gaaraya 5 ruux ayaa waxa ay ciidamada amniga puntland ay ku soo qabteen howlgallo qorshaysan oo ay sameeyeen ayagoona xilligaas ku tilmaamay in ay wadeen falal amniga lid ku ah waxaana maalmihii la soo dhaafayay socday maxkamadeenta xubnahaasi xeerlaalayaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee 5 gobol gaashaanle maxamed xuseen axmed ayaa maxkamadda ka dalbaday in raggaasi xukuno adag lagu rido kadib markii uu sheegay in raggaasi ay deegaanadooda u soo tagaan in ay dhibaateeyaan dadka ku dhaqan puntland wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta soo saartay digniin ku socoto hay-adaha samafalka ah ee aan dowliga ahayn iyo kuwa caalamiga ah ee ka howlgala deegaanada maamulkaasi qoraal ka soo baxay wasaaradda qorsheynta galmudug ayaa waxaa hay-adahaasi looga digay in ay fargelin ku sameeyaan hanaanka doorashada golaha deegaanka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug sidoo kale qoraalka wasaaradda ka soo baxay ayaa waxaa lagu sheegay in galmudug ay tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonto hay-ad walba oo ku lug yeelata doorashada golaha deegaanka magaalada gaalkacyo isuduwaha ammaanka ee gobolka Rift Valley Kenya George Tanambia ayaa digniin adag u diray siyaasiyiinta reer Kenya ee jeedinaya hadallada naceebka iyo qalqaybsanaanta ku saleysan ee keeni kara kicinta dadweyne Master Tanambia ayaa sheegay in madaxda anshax xumada ku kacda ee shacabka isku dirta laga hor istaagi doono in ay isku soo sharaxaan xilalka hoggaanka marka doorashada guud ee dhacayso waxa uu dhanka kala sheegay in kuwa lagu helo dambiyada kicinta dadweyne tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono
waxa uu intaa ku daray in hogaamiyeyaasha sameeya hadallada horseedaya kala qaybsanaanta iyo cadaawadda in la xiri doono ka hor inta aysan ololaha doorashada bilaabin. waxa uu ugu dambeyntii ugu baaqay siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta in ay soo bax walba oo ay qabanayaan ay noqdaan kuwa nabad ah. waxa uu dhinaca kale dhallinyarada uga digay in si qaldan loo adeegsado. dhinacyada dagaalamaya ee dalka yemen ayaa isdhaafsaday ilaa 1,000 maxaabiis ah oo ay ku jiraan 19 ka mid ah askarta reer Sacuudi, taas oo qayb ahaan lagu hirgelinayo tallaabooyinkii lagu soo dhisay kalsoonida ee lagu heshiiyey intii lagu guda jiray wadahadaladii nabadeed ee lagu qabtay dalka Sweden dhammaadkii 2018. ila wareedyo xogogaal u ahaa wadahadalada ayaa sheegay in dowladda Yemen oo ay taageerayaan isbahaysiga militariga ee hogaamiyo Sacuudiga iyo kooxda Xuutiyiinta ee Iiraan la safan ee ku dagaalamaya muddo ka badan 5 sano ayaa ku heshiiyey liis ay ku jiraan 180 maxaabiis in la isdhaafsado, taas oo noqon doonto tilaabo weyn oo loo qaaday heshiiska Yemen. heshiiskan isdhaafsiga maxaabiista oo ujeedkiisu ahaa siideynta ilaa 15,000 oo maxaabiis ah oo labada dhinac ah ayaa si tartiib ah oo kaliya qayb ahaan la fuliyey. ergeyga qaramada midoobay ee dalka Yemen Martin iyo sarkaal ka socda guddiga caalamiga ah ee Lanqeyrta Cas ee ICRC ayaa lagu wadaa in ay qabtaan warbixin kooban oo goor dambe soo baxdo dhammaad kulanka isbuuclaha ah ee ay yeeshaan maxaabiista Yemen iyo guddiga maxaabiista. Yemen ayaa ku jirta xaalado colaadeed tan iyo markii Xuutiyiinta ay ka saareen xukuumadda uu caalamku aqoonsan yahay ee caasimadda Sanca dabayaaqadii sanadkii 2014, taas oo keentay in isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga in ay soo farageliyaan bishii Maars 2015. iska horimaadka ayaa waxaa ku dhintay 10,000 oo qof, badankoodu ahaa dad rayid ah, wuxuuna dhaliyey waxa ay qaramada midoobay ugu yeertay dhibaatadii bini'aadanimo ee ugu xumeyd adduunka. ugu dambeyntii Armenia iyo Azerbaijan ayaa isku diyaarinaya dagaal weyn kadib markii iska horimaad culus uu ka dhex qarxay militariga Azerbaijan iyo koox gooni u goosato ah ee reer Armenia ah, taas oo horseedi karta khasaare nafeed oo shacabka iyo militariga soo gaarta. waa isku dhicii ugu xumaatan iyo 2016 dhexmara Azerbaijan iyo Armenia oo uu ka dhaxeeyo muran dhuleed salka ku haya gobolka Nagorno-Karabakh. gobolkaas waxa uu caalamku u aqoonsan yahay in uu ka tirsan yahay Azerbaijan, hase yeeshee waxaa degan dad Armenian ah oo doonaya in ay goostaan, waxaana taageeraya dowladda Armenia. khudbadda uu shacabka ugu jeediyey telefishinka ayaa waxa uu madaxweynaha Azerbaijan uu wacad ku maray in uu guul ka gaari doono ciidamada Armenia. waana intaa dhegaystayaal dhacdooyinka caalamka aan dib idinku celiyo qoslaayay qeybaha ka haray barnaamijka xogmaal. aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa wariyaheenna Maxamed Abuukar Cabdi Xasan oo inala socodsiinayay wararka ugu waaweyn gudaha dalka iyo dibadda saacadihii aynu ka soo gudubnay. aan halka uga soo gudubno markaan si toosa ayaanu u gudagalaynaa faahfaahinta qodobadii hordhaca barnaamijka aad ku dhagaysateen. aan ku bilownay dhegaystayaal. Cabdalle Muumin waa xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee SJS. waraysi kooban oo aan goorsii horeysay la yeeshay ayaa waxa uu kaga hadlay dhinacyo badan oo khuseeya hadalkii madaxweyne Farmaajo ee uu xalay ka jeediyey munaasabad ka dhacday madaxtooyada dalka, taas oo su'aalo lagu weydiinayay madaxweyne Farmaajo, waxaana munaasabadaas inteedii badan ay u muuqdeen su'aalaha la weydiinayay madaxweyne Farmaajo mid la soo diyaariyey. hase ahaatee dhowr su'aalood oo ay weydiiyeen dadkii madashaas ka qayb galay ayaa madaxweyne Farmaajo uu ka gaabsaday su'aalahooda, waxaana ka mid ahaa su'aalihii la weydiiyey madaxweyne Farmaajo dhiibistii qalbi dhagax iyo cafis inuu ka weydiiso qalbi dhagax, iyo sidoo kale in ururka Al-Shabaab uu ka saaro jabhadda ONLF, iyo sidoo kale gobolada Sool iyo Sanaag in xuquuqdii mas-uuliyadeed la saaray Somaliland, halka xubnaha ku matala mas-uuliyiintoodii ay ku kala sugan yihiin Puntland iyo Muqdisho. su'aalahaas dhan ayuu ka gaabsaday madaxweynaha, qaarkood ayuu si cad u sheegay in uusan ka jawaabi karin islamarkaana ay adag yihiin. dhinaca kale madaxweyne Farmaajo oo mar wax laga weydiiyey arrinta warbaahinta iyo caburinta lagu hayo suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho ayaa si cad u sheegay in suxufiyiinta qaar aysan aqoon u lahayn tebinta wararka iyo sidoo kale
qaarkood in ay u shaqeeyaan hay-ado madax bannaan iyo ururka al-shabaab. hadalkan ayaa abuuray hadalhayn badan oo bahda saxaafadda si gaara u taabanayay, waxaana uu u muuqday mid fariin loogu dirayo hay-adaha dowladda ee awoodda leh islamarkaana dhibaato loo geysan karo suxufiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan muqdisho. xogeyaha ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee s j s oo goor sii horeysay iyo waramay ayaa waxa uu si kulul uga hadlay hadalkii madaxweyne farmaajo, waxaana uu tilmaamay inuu yahay mid fariin gudbinaya, taasina ay keeni karto in la dhibaateeyo suxufiyiinta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan muqdisho. si cad ayuu u sheegay madaxweyne farmaajo in la dhibaateeyo suxufiyiinta soomaaliyeed islamarkaana qaarkood ay yihiin al-shabaab, waxaana hadalkiis uu yahay mid digreeto ah. waa sida uu hadalka u dhigay cabdalla muumin, xogeyaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee s j s oo ii waramay goorsii horeysay. waa kan waraysigii aan la yeeshay oo dhinacyo badan taabanayay, ku qotamana hadalkii madaxweyne farmaajo xalay uu ka jeediyey madaxtooyada dalka iyo madashii su-aasha lagu weydiinayey. marka waa mahadsanta hadalka madaxweynaha xalay uu jeediyey waxaan u aragnaa inuu yahay war cusub oo dhiilo leh oo madaxweynaha xilligan oo kale oo dalka uu doorasho galayo marxalad xasaasiya lagu jiro. wariyaasha soomaaliyeedna awalba dhibaato badan oo amniga maaragtay xaggiisa ay haysatay inuu sheego aan ku habboonayn. caddayn la-aan haddana inuu madaxweynaha dalka uu hadallo noocaas oo kale sheegana waxaanu aragnaa inay tahay arrin ka fiirsasho la-aan ah. inuu yidhaahdo wariyaasha qaarkood waa shabaab, iyadoo aan ognahay shabaab in dowladda soomaaliyeed u taqaano inay yihiin urur argagixiso adduunka looga yaqaano. wariyaashuna ay ka mid yihiin dhinacyada ay dhibanaha u yihiin ay ka mid yihiin, inuu haddana sidaas ku sifeeyo waa hadal aan maaragtay aada looga walaaco, aada looga murgo, oo aan la qalbi jabnay, aada iyo aadna uga xunnaa. arrinta labaad oo meesha ku jirtana waxay tahay madaxweyneha wuxuu sameeyey qodobo dhowr ah oo marin habaabin ah sidaan u aragno, oo ay ugu horeyso arrinta ku saabsan suxufiyiinta aqoontooda oo wax ka sheegay. suxufiyiintii uu isagu 2012 ilaa iyo maanta uu ku yeeranayay oo wacay oo dhahaa kaali waraysta oo idaacadihiina iga sii daaya oo telefishinadiina igu waraysta, markuu xilka raadinayo inuu maanta aqoontoodii wax ka sheego arrin kale oo nasiib darro ah. suxufiyiinta soomaaliyeed annaga rikoorka waxaan ku haynaa 80% inay jaamacadaha dalka iyo waxbarashada iyo kasoo baxayaan, aqoontooda inay kordhayso, garaadkooda inuu kordhaayo, inay xaalad adag kusoo shaqeeyeen, inay mudan yihiin in loo garaabo oo lala maaragtay la garab istaago oo la taageero oo amnigooda wax laga qabto. laakiin inuu madaxweynaha arrintaas sheego waa nasiib darro. hadalka madaxweynaha dhanka kale wuxuu ahaa digreeto ama amar u muuqday hay-adaha ammaanka la siinaayo. sidaa darteed bulshada rayidka soomaaliyeed, shacabweynaha soomaaliyeed, beesha caalamka ee danaysta arrimaha soomaaliya ee taageerta soomaaliya, hay-adaha amniga, waxaan leenahay arrintaas waa in indho gaara lagu fiiriyaa. sababtaan sidaas u leeyahay waxay tahay mar walba oo saxafiyiinta amnigooda uu maaragtay kasoo daro waxay ahayd mar kasta oo dalka uu kala guur iyo doorashooyin gelayo. 2012 oo kale dhibaato badanaa dhacday. marka hadda oo mar kale doorasho dalka uu galayo hadalka madaxweynaha uu kusoo beegmay, waxaan walaac ka qabnaa sida xaaladda amniga suxufiyiinta uu noqon karo. sidaa darteed waxaan ku baaqaynaa arrintaas bal in indhaha loo furo oo si gaara looga warhayo oo loola socdo oo la dhayalsan. cabdalle, mala dhihi karaa madaxtooyada waxa ay uurka ugu qabtay warbaahinta madax bannaan madaxweyne farmaajo ayaa xalay bidhaamiyey? 4 sano lasoo dhaafay ee dowladda madaxweyne farmaajo dalka ay ka talinaysay waxaa badtay tacadiyada loo geysto suxufiyiinta. tusaale waxaan kusoo qaadan karaa February 2017 ilaa maanta aan joogno waxaan diiwaanka ku haynaa 10 suxufi oo la dilay, 10 dhimashaan haynaa. waxaan haynaa tiro 100 ku dhow oo la xiray oo gobolada kala duwan dalka ka dhacday, muqdisho ay ku jirto. waxaan haynaa 12 suxufi oo hal sano keliya waa 12 bilood oo bil kasta wariye uu dalka ka cararayo, ama xarig ama dil ama handadaad kale uu ka cararayo. iyadoo waxaasoo dhan ay dhacaayeen oo aan islahayn dowladda madaxweyne farmaajo tacdiyada ay geysanayso madaxweynaha ama warkabahaayo ama raalli kama ah aan islahayn. xalay hadalkiisa wuxuu muujiyey, waxaa la yidhi afka wuxuu soo xadaa wixii warka ku jira.
wixii ay dowladdu qabtay ee aaminsanayd gaar ahaan madaxweynaha oo head of state-ka ah wixii uu aaminsanaa ayuu xalay sheegay nacaybka iyo cadaawadda uu u qabo warbaahinta iyo wariyaasha ayuu madaxweynaha caddeeyey waxay noqon kartaa in madaxweynuhu raalli ka ah wixii dhacayay isagaana xalay hadalkiisa ku sheegay waana nasiib darro in madaxweynaha oo la rabay inuu isaga horseedka noqo in wariyaasha la difaaco amnigooda iyo xaaladooda la hagaajiyo inuu maaragtaa nasiib darro uu sidaas oo uu yidhaahdo na waa nasiib darro waa arrin aan aad iyo aad ka xunnahay wariyaashana uga tacsiinin maxaa ka dhalan kara waa fududahay waxaa ka dhalan kara waxay tahay madaxweynaha baaq uu dirayna waxay tahay fariin buu u diray in la dhibaateeyo suxufiyiinta in wariyaasha lagu sheego dad aan aqoon lahayn oo shabaab la shaqeeya waxay ka dhigan tahay fariin ah in dhiigga wariyaasha la banaysan karo fariin ah in la dhibaateyn karo fariin ah in ciidamada amniga horey iyaga laftarkooda loogu eedeynayo ama aan ugu eedeynayn inay qayb ka yihiin dhibaatada in hadda ay haystaan cudurdaar ay ku dhibaateyn karaan suxufiyiinta taasay ka dhigan tahay madaxweynuhu waxaan leenahay waa inuu mar kale banaanka usoo baxa hadalkaas uu saxaa raaligelin ka sameeya caddeeya in saxaafadda dhibaatadeeda uusan u soconin haddii aysan saas noqonina waxaan anagu soo jeedinaynaa dhibaatooyinka hadda kadib ku dhaca suxufiyiinta haddii hadalka madaxweynaha cid wax ku qaadata ay jirto oo suxufi ku dhibaataysa mas-uuliyaddeeda madaxweyne wax uu ku yeelanaya wariyaasha soomaaliyeed xilligan la jooga maxaa looga baahan yahay wariyaasha xilligan waxaa looga baahan yahay waa xilli kala guur waa xilli la gelayo marxalad doorasho anigu waxaan joogay 2012 oo ahayd sanadkii doorasho la gelayay dalka sanadkaas 18 wariyaa dalka nooga dhimatay oo meelo kala duwan lagu dilay mar kasta oo ay dhacayaan kala guurkaba doorashooyinka dhacayaan xaaladda wariyaasha way soo adkaataa waxaa la gudboon hadda wariyaasha marka waxaan u sheegaynaa taxadar inay qaataan digtoonida badiyaan inay kala bartaan siyaasiyiinta hadallada ay ku hadlaayaan iyo waxa ay keeni karaan dadka ay platformka siinayaan oo sidaas madaxweynuhu uu horey saxaafadda platform intay ugu siisay hadda iyagu kusoo jeestayna sidaasoo kale suxufiyiintu inaysan platform u siinin dadka sidaasoo kale dib ugu soo jeedsan kara oo hadhowta dhibaateyn kara inay suxufiyiinta midoobaan inay si midaysan uga jawaabaan oo ay u diidaan hadallada noocan oo kale ah suxufiyiintu ma aha shabaab suxufiyiintu ma aha argagixiso taas waa in la caddeeyaa si wada jir ahna saxaafaddu waa inay saas u caddaysaa kasarta ka dhalan kartana si isku mid ah waa in loo wada arkaa loogana dhiidhiyaa dowladdan waxaa ugu baaqaya madaxweynuhu hadduu qaldamay dad kala jira waa inay saxaan qaladka hadii madaxweynuhu uusan arrintaas ku talagal ugu talagelin si ku talagal ahaan na ama ka fiirsasho la-aan na uu dhahayna fursad way weli haystaa ha iska saxo waxaa sheegtay in xilligan oo kale khatar badan ay wajihi karaan suxufiyiinta soomaaliyeed hadalka madaxweyne farmaajo marka dib aan ugu laabanno ma noqon karaa mid fariin u diraya in lagu dhibaateeyo suxufiyiinta madaxweynaha waa madaxweynaha dalka hadalka uu yidhaahdo dad badana wax ku qaadan kara dad badan ayaa u isticmaali kara cudurdaar ay wax ku dhibaateeyaan waa loo qaadan karaa sidaas waad ogtahay dalka maraykanka marka tusaale usoo qaato mar kastoo madaxweynuhu arrimaha saxaafadda ka hadlo dad ayaa dhibaato u geysta suxufiyiinta hadalka madaxweynaha waxaa laga yaabaa dad si qaldan u fasiran kara oo u qaadan kara inay jiri karaan dad cudurdaar uga dhigan kara inay suxufiyiinta ku dhibaateeyaan ayaa jiri kara ciidamada amniga gaar ahaan waxaan u sheegayaa inay aada uga digtoonaadaan ama ka taxadaraan inay dhibaateeyaan suxufiyiinta oo ay maaragta arrintaas cudurdaar u qaataan madaxweyne hadalkiisa wuxuu keeni karaa halis iyo khatar weyn haddii aanan si dhab ah loo fiirin hoos haddaan loo fiirinin haddaanan deg deg loo sixin waa tahay cabdalla madaxweynaha waxyaabaha uu soo hadal qaaday waxaa ka mid ahaa xeerkii saxaafadda oo aan saxiixay ayuu yidhi siduu dhahay madaxweyne farmaajo xeerkaas ururka s j s waa uu dhaliilsanaa iyana maxay ku kordhin kartaa xaaladda hadda jirta hadallada uu madaxweynaha sheegay markuu ka hadlaya xeerka wuxuu sheegay in xeerkii ugu horreeyay madaxweyne uu saxiixo uu yahay arrintaas oo sidaan sheegay aan sax ahayn waxaan rabaa inaan saxo oo aan caddeeyo madaxweynaha ka horreeyay isaga xasan sheekh maxamuud ayaa bishii janaayo 9 2016 saxiixay xeerkii ugu horreeyay horta meeshaas marka inaan saxaan rabaa oo madaxweynaha hadalkiisu sax ma ahayn farmaajo hadalkii xalay uu sheegay sax ma ahayn wayna ka qaldanay taariikhda sababtoo madaxweyne isaga ka horreeyaa xeer saxiixay
taas inuu maaragtay xusuusiyo oo dadka wataliyaasha ay ka saxaanay ahayd madaxweynaha haddii sixi waayeen anaa saxaaya hadda oo fursadaan uga faa'iidaysanaya madaxweyne xasan sheekh ayaa 2016 saxay xeerka waxaa dib u eegis lagu sameeyey oo la furay dib u eegista bishii maarso 2017 oo wasiir uu xilligaas dalka ka ahaa injineer yariso allah naxariistay marka ereygaas uu sheegay sax ma ahayn xeerka isagoo hadda aad iyo aad u qariban oo aad iyo aad u xun oo caburin badan ay ka buuxdo oo annaga aan hore uga hadalna ayaa mar kale dowladda madaxweyne farmaajo ay soo celisay marka xeerkan dib u eegista loo bixiyey xeerka wax ka bedelka saxaafadda waa xeer aan mowqif cad hore uga istaagnay waxaan u aragnaa inuusan dalka ku habboonayn waxaan u aragnaa inuusan wariyaasha soomaaliyeed ku habboonayn u qalbin sababaha aan hore u sheegnay oo ay ka mid tahay in uu khilaafsan yahay dastuurka dalka inuu khilaafsan yahay xeerarka caalamiga ee xuquuqda suxufiyiinta difaacaya inuu khatar gelinayo amniga suxufiyiinta iyo sababo kaloo badan sidaa darteed waxaan soo jeedinaynaa xeerkan in meesha laga saaro dib loogu laabto lasoo saaro xeer u qalma suxufiyiinta soomaaliyeed oo amnigooda iyo badqabkooda iyo xuquuqahooda kale iyo xorriyaddooda hadalka ee damaanad qaadaya sidaa darteed madaxweynaha hadduu rabo inuu ku faano xeer ha la yimaado xeer suxufiyiinta wax u qabanayo wax u tarayo ha la yimaado haddii kale madaxweynuhu wuxuu dalka xilligiisa dhammaan doonaa iyadoo taariikhda ay u gashay xeerkii wax kabedelka oo madaxweynihii hore uu saxiixay oo uu mar kale soo celiyey kii hore ka liita unbaa taariikhda u geli doonta cabdalla muumin xogayaha ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee SJS ayuu kaasi ahaa oo aan ka wareysanayay hadalkii madaxweyne farmaajo xalay uu ka jeediyey madaxtooyada dalka ee ku aadanaa in qaar ka mid ah suxufiyiinta soomaaliyeed aysan aqoon u lahayn wararka ay baahinayaan iyo sidoo kale qaarkood in ay la shaqeeyaan hay-ado shisheeye iyo ururka al-shabaab siyaasado qarsoon iyo qosolaan qalbiga jirin been baa lagu khaldaa si loo qaybiye soomaaliye mid qura noqo siyaasado qarsoon iyo qosolaan qalbiga jirin been baa lagu khaldaa si loo qaybiye soomaaliye mid qura noqo weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka xogmaal oo idinkaga imaanaya idaacadda star f m stuudiyaha magaalada muqdisho halka dhegeystayaasha ku sugan gobolada dalka ay si toosa inooga dhegeysanayaan efemyada idaacadda ay ku leedahay goobaha aad ku sugan tihiin markaan ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka maxamed xuseen rooble ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka ra-iisul wasaare xilka xafiiska xukuumadda dalka xilkan ayaa waxaa ku wareejiyey mahdi maxamed guuleed qadar ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka kadib munaasabad ka dhacday xarunta madaxtooyada villa soomaaliya gaar ahaan xafiiska ra-iisul wasaaraha khudbad kala duwan ayaa halkaas laga jeediyey ugu horeyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa halkaas ka jeediyey oo koobneyd inkastoo ay koobneyd khudbadiisa ayaa waxa uu ka hadlay tacadiyada kufsiga iyo dilalka ka dhanka ah haweenka soomaaliyeed iyo caruurta kaas oo muddooyinkii dambe soomaaliya kusoo badanayay masar rooble ayaa hoosta ka xariiqay in si deg deg ah uu kusoo dhisi doono golihiisa wasiirada waxaana uu geesta kala sheegay in uu magacaabi doono khabiir dhanka sharciga ah oo la dagaalama tacadiyada iyo dhibaatooyinka loo geysto haweenka soomaaliyeed waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay in mudnaanta koowaad uu siin doono badbaadinta haweenka iyo caruurta soomaaliyeed waa kan khudbadii koobneed ee uu halkaa ka jeediyey master roble waxaa sharaf ii ah in aan maanta oo ay taariikhdu tahay 27kii bisha sebtembar 2020 si rasmi ah aan ula wareego xilka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa aan mahad gaara u jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo igu aaminay mas-uuliyaddan qaran mudanayaasha golaha shacabka ee kalsoonidoodii isiiyey waxaan uga mahad celinayaa kusimaha ra-iisul wasaaraha mudane mahdi maxamuud guuleed iyo xubnaha golaha wasiirada ee xilka sii haya howlwadeennada iyo shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha howlihii adkaa ee
aad ku wanaagsanaa ay soo qabteen muddadii 3 sano iyo barka ay ahayd ee la soo dhaafay insha Allah hadduu Allah subxaanahu wa ta'ala raalli ka noqdo waxaan soo dhisi doonaa dawlad tayo leh oo dardar gelisa howlaha mudnaanta iyo hortabinta u leh dalka si aan u gaarno guulaha waaweyn ee inaga sugayaan shacabka Soomaaliyeed si aan wax uga qabto tacadiyada lagula kaco haweenka iyo carruurta Soomaaliyeed iyadana mudnaanta koowaad ayaan siinayaa taasoo muddo badan lagu soo noqnoqotay waxaan magacaabi doonaa insha Allah qabiir sharci oo xil weyn iska saara baarista si uu uga shaqeeyo hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka waxaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya uga mahadcelinayaa ansixintii iyo meelmarintii heshiiskii siyaasadeed ee hannaanka doorashada ee la isla ogol yahay waxaan bogaadin iyo dhiirigelin u dirayaa ciidamada qalabka sida walaalaheen oo naftooda u horaya amniga dalkeena sidoo kale waxaan iyadana mahad gaar ah siinayaa ciidamada AMISOM oo qayb ka ah nabadeynta Soomaaliya iyo beesha caalamka oo garab taagan qarankeena Soomaaliyeed ugu dambeyntii ballanteenu waa Soomaaliya oo nabad ah siyaasad ahaan xasiloon dimuqraadi ah leh dhaqaale horumarsan nabad ku wada nool dariskeeda iyo dunida nabad kula nool waadna mahadsantihiin dhinaca kalena ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo xilka maanta ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa isna dhankii khudbad ka jeediyay waxaana uu tilmaamay kontonkii cishe ee uu xilka siyaasaha ra'iisul wasaaraha hayay in wax badan ay u qabsoomeen isla markaana ay ansixiyeen shuruucyo dhowr ah waxa uu sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in si wada jir ah loo samata bixiyo dalka sidoo hadalka u dhigay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayuu halka ka jeediyay waxaana kamid ahaa waxyaabihii uu sheegay mudane ra'iisul wasaare waxa farxad noo ah maanta inaanu kugu soo dhaweyno xafladan xilwareejinta xukuumaddii xilhaynta ay shaqaday sii waday iyo barnaamij ka turjumaya oo xilwareejina waxqabadkii dowladda federaalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan xukuumadda ee 2017 ilaa 2020 kuwaasoo ku salaysan dhammaantood ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo siyaasadii uu ballan qaaday inuu ka dhabayn doono kuna hagi doono dalka muddo xileedka 4 sano ah ee loo igmaday inuu dalka hogaamiyo sida xasuusataan haddaan soo koobo ballanqaadka madaxweynuhu waxaa ka mid ahaa sugidda amniga iyo arrimaha amniga sidii wax looga qaban lahaa dib u heshiisiinta dib u eegista dastuurka dib u habaynta dhaqaalaha iyo dakhli kordhinta sarreynta sharciga iyo dib u habaynta hay'adaha garsoorka xoojinta nidaamka federaalka ah iyo hirgelinta doorashooyin dimuqraadi ah oo dalka ka qabsooma arrimaha amniga wax badan baa ka hirgalay kana qabsoomay madaxweynuhu markii uu muddo kooban joogay xilka hayay waxa uu tagay wasaaradda gaashaandhigga oo aawada ogeydeen in uu muddo deganaa xafiis ay u ahayd xarun ay u ahayd waxa uu eegay sida ay u dhisan yihiin ciidankeenna maamulkooda qaabka hagidooda waxa uu muuqatay inay lagama maarmaan tahay in ciidanka qaranka la diiwaan geliyo oo la ogaado qof kasta fayl yeesho qof kasta raadraac yeesho qof kasta meel loo maro yeesho xuquuqda uu dalka ku leeyahayna uu helo maadaama waajib iyo xuquuqi saaran tahay arintaas madaxweynuhu waa ka dhabeeyay waxaanu xukuumadda faray in la diiwaan geliyo dhammaan ciidamada qaranka dhinacyadooda kala duwan maanta waxaynu haysanaa diiwaangelinta ciidamada oo raadraac sugan leh tababarkoodii oo la teeyay qaybihii kala duwanaa ay lahaayeen oo aad loo xoojiyay karti iyo awoodna maanta u leeyihiin in ay wiiqaan al-shabaab iyo nabadiidka amnigana gacanta ku hayaan waxa kale oo shaqo weyn aynu ka qabanay iyadoo laga turjumayo siyaasadii hagidii madaxweynaha dib u heshiisiinta dalka oo xasuusataan markii la doortay madaxweynahaba in magaalada Gaalkacyo oo aan anigu nabadeynteeda ka shaqeyn jiray 2016 ay horseed u noqotay dadku labada dhinacba inay isaga gudbaan
dib u heshiisiinta ka hana qaatay gobolka mudug shabeellada hoose iyo galguduud iyo meelo kale oo dalka ka mid ah iyo in aynu salka u dhignay qorshaha dib u heshiisiinta qaranka oo maanta hage inoo ah dib u eegista dastuurka oo dhammaystiran dhinacyadeedii xagga farsamada guud ahaan cutubyadii ay ka koobnayd oo shaqo weyn oo iyadana la qabtay ah maamulada iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedaduna ka wada qayb qaateen dhammaystirkiisuna wasaaradda dastuurka iyo xukuumadda iyo hay-adaha dastuurka u xilsaaran ee labada ahba ay u taallo inay meel mariyaan dib u habeynta dhaqaalaha wax badan baad ka warqabtaan oo guddida dhaqaaluhu horseed u ahayd wax badan oo shalay ugu dambeysay intii xukuumadda xilgaarsiintu IMF iyo World Bank deyn cafiska mashruuca aynu kala shaqaynaynay sida uu hore ugu maray dakhligu u kordhay miisaaniyadii 2017 iyo maanta 2020 faraqa weyn ee u dhaxeeya ka warqabtaan oo ogtihiin waxaanu dhaxalnay 25 wasaaradood 26 wasaaradood xukuumaddu ka mid tahay 25 ka mid ah dakhli ururin jiray dhowr iyo 10 shirkadoodna magaca dawladda federaalka Soomaaliya ayay ku ururin jireen dakhliga oo u ekeyd in nidaamka dakhliga ama cashuuruhu ay qayb ahaan barafitaasi yihiin shaqo weyn baa laga qabtay maanta waxa ay wasaaradda maaliyaddu hormuud u tahay nidaam midaysan oo dakhli ururin ah iyo serviceka ama adeegyada la qabto oo meel ku ururay garsoorka iyo cadaaladda dib u habeyntiisa ayaa wax badan laga qabtay golaha adeega garsoorka oo meel maray golaha shacabkana hor yaal jaranjarooyinka u hadhayna inay marta ay tahay iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyaduna ka mid ah halbeegyada dowladnimada muhiimka u ah mudane ra'iisul wasaare aragtida madaxweynuhu waxay ahayd dalkan in siyaasad iyo sharci lagu kala hago intii xukuumaddani shirtay 760 sharci iyo heshiis oo caalami ah ayaa maray 23 ka mid ah way dhaqan galeen oo madaxweynuhu uu saxeexay marka waxay tusaysaa in sharciga iyo nidaamku halbeeg iyo hage u yihiin dalkan waxa aynu ku shaqaynayno Soomaali ku wada joogi karto kuna mid ahaan kartaa ay tahay sharci iyo nidaam iskaashiga caalamiga ah ayaa qayb kale weyn ah madaxweynuhu hormuud ka ahaa isdhexgalka dhaqaale ee geeska Afrika oo ay macnaheedu tahay isdhexgalka ummadda Soomaaliyeed ee geeska Afrika degta Soomaalida geesku qoomiyad ahaan waa ummadda ugu ballaaran juqraafiga ay degan tahay ummadda geeska Afrika oo dhan taas waxa hormuud ahaa madaxweynaheena waana hirgashay isdhexgal dhaqaale iyo isu socod maanta inuu ka hana qaado geeska Afrika qof kasto Soomaaliyeed meel kasto uu joogabana waxay u tahay faa'iido weyn doorashooyinka ayaa ugu dambeeyay baarlamaanka iyo xukuumaddu waxay ansixiyeen sharcigii doorashooyinka ha yeeshee si dalka la isugu hayo oo la isugu jiido waxa hadda aynu haynaa heshiiska siyaasadeed ay madaxweynaha iyo madaxda dawlad goboleedadu kala saxeexdeen oo hirgeliyeen golaha shacabkuna uu shalay ansixiyay labada aqal ee baarlamaanku aan iraahdo afwan ay hirgeliyeen shalayto oo ay meel mariyeen waxaan ugu hambaliyeynayaa golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed go'aanka taariikhiga ah ee shalayto ay noo meel mariyeen waayo doorashadu waxa ay kaabtaan nabadda in nabad iyo cod lagu kala baxo halkii qori iyo khilaaf iyo dagaal iyo rabshado ay iman lahayd marka almiidaan waasic waxaynu sameyn doonaa oo hogaaminayo ra'iisul wasaaruhu sharcigaas haddaynu ku xisaabtanno heshiiska waxay inoo furayaa fursadna inoo siinaya in miidaan ballaaran oo lagu tartami karo aynu helno ugu dambeyntii waxaan soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka ayuu kaasi ahaa oo maanta si rasmi ah xilka u wareejiyay qosolaan qalbiga jirin been baa lagu qaldaa si loo qaybiye Soomaaliyeed mid qura noqo siyaasadu qarsooniyo qosolaan qalbiga jirin been baa lagu qaldaa markan Somaliland
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka jawaabay hadal uu xalay madaxweynaha soomaaliya ka sheegay dood ku saabsaneed arrimaha doorashooyinka dalka oo ka dhacday magaalada muqdisho. farmaajo oo hadal ka jeedinayay doodaasi ayaa sheegay in somalilan aysan soomaaliya ka go'i karin islamarkaana ay midnimada soomaaliya tahay mid muqadas ah isuna baahan yihiin shacabka. dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo isna maanta ka hadlay munaasabad macalimiin tababar loogu soo xirayay ayaa waxa uu si kulul uga jawaabay hadalka madaxweyne farmaajo, waxaana uu tilmaamay in somalilan kow ay ka ahayd midnimada shanta soomaaliyeed laakiin ay wax ka socon waayeen siyaasiyiinta soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay. sidoo kale muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in madaxweyne farmaajo uu isagu yahay qofka ka socon la-yihiin wadahadalada soomaaliya iyo somalilan iyo isukeynta ummadda soomaaliyeed. waxa uu sidoo kale muuse biixi cabdi ka hadlay madaxweyne farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada ay ka shaqeynayaan kala fogeynta ummadda soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay. maalmahan waa maqlayseen malaha beri ugu dambeeyey waxaa aada iyo aada midiyaa u haystay muqdisho iyo shiro ka socda iyo soomaaliya. muddada waxay maqlinay 6 madaxweyne oo xamar ku shiraaya. waxaa ka soo baxay markii ay waxoodii dhammaysteen hal go-aan oo somalilan ay kaga hadleen. runtii ereygaasi ay somalilan nimankaa waaweyn isu tegay aada wax u garanayeen madaxweynayaasha dowladahaasi wuxuu ahaa erey aan ninkii dhegeystiba uu yaabay. somalilan oo ah somalilan protectorskii 6kii xuduuda ka qaatay ingiriiska waxay ku yidhaahdeen baarlamaankooda somalilan waxaa laga soo dooranayaa magaalada xamar. caqliga iyo hogaaminta somalilan iyo cidda mustaqbalkooda mataleysa waxaa laga daaraa muqdisho. su-aashaa waxaa weydiinayaa kuwii soo jeediyey masaasay tala ka noqotay ma doqoniina ma cadaawadba arrintaa ba haddana haloo qaado. waxaa kaloo la yaab leh dadka somalilan oo dhan oo ahaa dadkii xorigooda qaatay 1960kii oo kowdii iyo laba dowladood midoobeen weedhaa ka soo baxday madaxweyneyaasha soomaaliya ee 6 ah maxay tahay eedaas? ma cayba, ma godoba, ma gef loo bareerayba, ma weerarba? somalilan iyada shacabkeeda sheegi doona wuxuu ereygaasi suu meesha u qabtay. xamar baan idinka doonayaa oo ku talinayaa ereygaasi halkaas u yaalaayo waxa uu yahay waa laga jawaabi doonaa haddii alla wixii. taa waxaanu ka odhan doonay waxa la weeye ereygaasi waa erey maanta ka weyna kafaar iyo dagaal iyo wax walba waa erka culus. ma jirin sida xamar baan kaaga talinaya halkaa haytaada shacabka somaliland baa ka jawaabi doona. wax qabtana maaha wax la qaadanayna maaha. xalay waxaa ka hadlay tviyada madaxweynaha ka midka 6 madaxweyne ee villa soomaaliya xukuma mr farmaajo. waxaa la weydiiyey ka waran arrintii soomaaliya iyo somalilan. si kooban wuxuu yihi gobolkaasi ka gu-i maayo soomaaliya, weligiina heli maayo xorriyaddu doonayo. qolada siyaasiyiinta ee somaliland baa dadka waalaysa oo waxaa ku sheekaysay afrikiinama ogolo oo way kala yaacaysaa. 30 sanana waa loo diiday markaa shicibka wuuisa ogol yahay niman baa waxaa sheegsheegaya. ha dambayso sentenska inteeda kaba dhame qodobka ah gobol ka mida gobolada soomaaliya. dadka somalilan waxaan weydiinaya iyo caalamkaba iyo kuwa koonfurtaba 1960 bishii juulaay yaa midoobay? ma laba dowladood baa midoobay oo somaliland protectorate iyo qoladii soomaaliya ee hortaagay jimciyadda qolada ka dhexaysa miyaa midoobay oo 2 baarlamaan iyo 2 madaxweyne ayaa midoobay? mise gobol ka mid ay ahayd somaliland soomaaliya talyaaniga? waa erey u baahan la isweydiiyo. ereygaa madaxweynaha villa soomaaliya ugu yiri xagee uga keena gobol ka mid ah somaliland? 6kii 2 dowlad baa midoobay. waa qalinkii berigaa la qaaday. waa waxaaba ku dhaamay kuwii 6kii waxay yidhaahdeen 2 gobol ha qaateen adigu waxaa tiri waa gobol soomaaliya ka mid a maanta. waxa aada isu kay qabanay makeekiga farmaajo maanta oo ku hadlay iyo markhaati furkiisa isaga u sheegay
isla toddobaad ka hor markii uu xilayo shirkaa madaxweynayaasha dowladaha soomaaliya ku kulmayeen wuxuu yidhi waxaan ku dadaalay oo wuxuuga u sii daayay inaan isu hayo soomaaliya somaliland iyadoo horay gooni u joogto horay gaa u ahayd 40 shan isku ruuxeegaayay maanta wuxuu waa gobol kamid ah oo mago waa laba aan isku kay qabay waxa taagay sanadkan gudihiisa farmaajo wuxuu soo tago caalamkooda yidhi waxaan raadigelin ka bixinayaa xasuuq in loo geystay somaliland xasuuq loo geystay oo madaxweynihii fadhiyay ka badka ah ka bixiyay raadigelin afkiisa xawla caalam haddana saaka inuu yidhaahdo ma go'i karto oo ma noqonayso oo waa gobol waa makeek iyo markhaati uu socdo garan maayo xag u socdo hadalkaas waana afkiisa Soomaalidu waxay tiraahdaa ilaahow haa iyo maya meel hadeeg wada yeeshay wuxuu ku dheeraaday midnimada uu Afrika oo dhan baa kala daadanayso oo sidana Afrika ahligeedu wuxuu sheegayaa si aanay u kala daadan oo qolo iyo ugu bixi dowladda kale dalalka waaweyn in lagu eekaado oo Afrika ku dhisnaato dowladihii Afrika xuduudaha ka dhaxleen isticmaalka waata Soomaali ay ku dhashay dagaalada badan iyo deesan oo shantii baan isu keenaynaa ee dagaalada ay gobol qaaday Itoobiya iyo Kenya ee caalamka ugu mas'uuliyadda saxaadkii ku ekaada dowladda xadka Ingiriiska ka dhaxshay ku ekaada Soomaaliland waxay ku egtahay xuduudihii isticmaalka laga dhaxlay bila Soomaaliya iyo Soomaaliland waa la ictiraafay oo qool laga miyaatihi waxa jira gaariyaasha qaar oo jiray nafti hafar oo soo horjeeda halkeen baan qado waxba soo dhiyo farmaadi nafti hafar baa lahaa hurdu jiifay waa taasoo laga tahay qoladda ma taxamar dhixda ku socday waxa lagu waadeen nafti hafar way soo yoogna xamar yaa ka tahay yaa maanta Soomaaliya u tariya ma madaxweynaha kula Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi baa u tariya ma shanta madaxweyne ee gobolada u tariya go'aankooda ma beesha caalamka u tarisa ma kooxa kala u tariya bal waxay soo diinayaan go'aanka Soomaaliya yaa haya maanta ka Soomaaliya waa la yaqaanay anigu gudoomiye iyo fuliya haddaan garab marna baarlamaanka ay soo fiixdo waa laga qaaday oo dowladda waa la gooyay qofkii gafana saasa loo qabtaa bal iyaga yaa xukuma go'aankooda yaa gaaray way shirka yaa waday ma bulshada caalamka waday ma iyaga waday ma iyaga go'aanka muuse biixi cabdi madaxweynaha maamulka Somaliland ayuu kaasi ahaa idaacadda Star FM ee magaalada Muqdisho barnaamijka xogmaal ayaad ku dhageysanayseen qaranimo waxay tahay qiimaheeda lumiya cadowba qabsada oo qabow kuma nastaan siyaasado qarsoon iyo qosolaan qalbiga jirin been baa lagu khaldaa si loo qaybiye Soomaaliya mid qura noqo qalbiga jirin been baa lagu khaldaa si loo qaybiye Soomaaliya mid qura noqo dhiig walaalkii kii quba qooma mow dambayse dhiig walaalkii kii quba qooma mow dambayse midnimada quweeyo xornimada qadariyo isqoonsiga dhexdeena iska dhaafa khaladko isqoonsiga dhexdeena iska dhaafa khaladko dhiig walaalkii kii quba qooma mow dambayse dhiig walaalkii kii quba qooma mow dambayse midnimada quweeyo qaybihii dambe ee barnaamijka ayaanu isla soo gaarnay dhegeystayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii xogmaal oo aad ka dhageysanayseen raadiyo Star Studio Muqdisho tabintii iyo soo saaristii Cabduqaadir Qoslaaye dhanka farsamada Maxamed Abuukar Cabdi Xasan qaybta hore ee barnaamijkana igala qayb galay tan iyo kulan dambe nabad iyo warsan iyo heesii hordhaca
ayaan idin ogeysin wagaynu ashkatoone caddan sidaa ka dhiidhinay wasira isticmaarkii ingiriisku wuxuu yidhi urkan ku hayste afkana aan ka sheege haddii aad ilowdeen waa iga ogaysiis waa iga ogaysiis eedaarka soo mara isticmaalkii wuxuu yidhi argagixisa weeye hadda idinku damacdeen arligiina hooyo istiqlaalku foodkiyo amanku ku xidhaye waa haddaad adkaysaan